kulanti wacan oo wanaagsan kheerta hawada nagala socota ay kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka ron oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo maamulka Somaliland ayaa waxa ay sheegeen haddii ay mucaaradku isku dayaan in ay mudaharaad ay ka sameeyaan gudaha magaalada Hargeysa in ay kala kulmi doonaan dhibaato aad u xoog badan waxaa kaloo isla Somaliland baan ku jirnaaye meel lagu magacaabo Boocame ayaa ciidamo 40 tignika wata oo kuwa mucaaradka iyo kuwa Somaliland ayaa hadal sheegaya inay isku horfadhiyaan meesha waxa ka tagay dhaqaaq ciidan oo u dhaxeeya dhinaca Buuhoodle iyo dhinacan Somaliland waxa ila joogo faahfaahinaya saaxiibkii Cabdi soo dhow maada horta waa maasan tahay haddaan ku hormarno dhaqaaq ciidan ayaa ka jiro xuduudka Somaliland iyo Puntland meesha la yiraahdo Boocame ayaa waxaa tagay nin taliya ciidamada oo ugu sareeya Somaliland kaasoo wato 45 tignika ah halkaasna waxaa ku sugan meel u dhow wafdi waxaa ku sugan oo ayagana ka imaada dhanka Puntland oo xildhibaano ay kamid yihiin iyo wasiiro marka cabsi fara badan ayaa jirto dhaqaaq xoog leh ayayna ka wadaan waliba dhanka Somaliland aad ay ugu dhaqaaq wadaan aaga Dugaraq iyo meelo kale oo fara badan ayaa cabsida ka jirta Puntland iyo Somaliland hadda kore isku dhaceen marar fara badan ay isqabsadeen oo dagaal dhaxmaray marka cabsidii hadda way sii badanaysaa marka dambeys waxa leeyahay waliba Somaliland aad u soo bushgareynayso weerarka ayada awood u soo yeeshay meeshaasna wasiiray xildhibaano ku sugan sidii wax noqon doonaan lama ogaado okay haddii uu dagaalka marka muxuu ku saabsan yahay ay qalqaalin hayaan iyo isku imaashadan yaa muxuu ku saabsan yahay micna wala horta deegaanada hadda la soo weerarayo oo hadda ciidamada ninkan taliyaha oo la soo aaday Somaliland ka socdo waxa ku sugnaa deegaanadaas maamulka gudoomiyaha Puntland u qaabilsan dhankaas Sool iyo maxaa la yiraahdaa waxa kale ku sugnaa xildhibaano iyo wasiiro halkaas ku sugnaa marka waxa leeyahay tuulo u dhow meeshaas Boocame meel u dhow oo agteeda waxa loogu sameeyay qada sharaf taliyaha ciidamada wato dhanka Somaliland ka imaaday marka dhaqaaqaas iyo cabsidii meesha ku sii badatay dadkan waxa laga baqayaa in halkaas uu dagaal ka dhaco ciidamada dhankan Dugaraq joogo oo dhanka Puntland ayagana ciidamo ay diyaariyaan oo halkaas dhaqaaq ayaa ka jiro marka cabsi far badan meesha laga soo sheegaa in Somaliland iyo waxa la yiraahdaa in Puntland dhowr mar hore isdagaaleen tiina hadda wali way soo noqonaysaa lama ogo meesha dhibaatada ay ka jirto laakiin dhanka Somaliland ayaa bushgareynta iyo ciidamada bilowday 45 gaari oo tignika taliyaha la socdo ayaa halkaas gaaray mahado Somaliland iyo Puntland way isku direeraan meeshan xuduudka Dugaraq iyo ilaa Buuhoodle meelahan way isku haystaan maxaa ka dhaxeeyo isku qabsan wallahi horta waxa la isku haysto waa dadka Sool iyo Sanaag ayaa la isku haystaa waa laba maamul oo ishagan laba gobol waaye labadaas gobolna waxa la kala raacsan yihiin qaybna Puntland raacsan tahay qaybna waxay raacsan tahay Somaliland marka meelahaas la isku haystaa mar walba dadka la isku haysto ayaga la rabo inay hal dhinac raacaan oo ay halkaas dhinac dhahan anaga halkaas dhinacan ku beernay wax dhinacaas ka socdo nooma imaan karo laakiin dhibka jiro Soomaalida dad hunguri badan qolo ay raacaysaa Puntland kuwa saaxiib loo xildhibaano iyo wasiiro madaxweyne ku xigeen wax walba ka dhinkan kalena ayagana Somaliland waa sidoo kale ayagana kuwa kale xildhibaano iyo wasiiro madaxweyneyalka marka dhibka jiro waxa way waa wixii oo kale hadda Soomaaliya kale waa ogtahay Somaliland xildhibaano ku leeyihiin wasiiro ku leeyihiin waa sidoo kale marka waxaan waa wax isdhaxma marayo waa dad xuduudna ka dhaxayso dad Soomaaliyeed oo shaq walaalo ah oo meel fog aan kala jirin waaye laakiin maamulka mar walba is dagaalaan waxaan isku haystaan waa deegaanada la isku haysto waa Sool iyo Sanaag mahado okay sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ay sheegeen maamulka magaalada Hargeysa taliyaha booliska u sareeyo in hadii mudaharaad ay sameeyaan kooxda mucaaradka in gacan bir lagu qaban doono maxaa ka jira halkaas wala horta waxa hadlay wasiirka arrimaha gudaha wuxuuna dhahay meeshas mucaaradka hadii dhaqaaq sameeyaan ama banaanbax ay sameeyaan waa in ciidamada u diyaar garoobaan waan inay ka hortagaan marna la ogolo banaanbax waxa la hadii waa la ogol yahay waa si sharci waa wax dastuuriya laakiin banaanbax waa in 3 maalin ka hor loo soo gudbiyaa gudoomiyaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo gobolka ninka u qaabilsan wax dhan waa inay helaan laamaha amniga dhan waa in 3 maalin ka hor loo soo gudbiyaa loo asteeyaa meel ku banaanbaxan si caadi ah u banaanbaxan laakiin hadda banaanbax oo mucaarad iska diyaarinayo oo magaaladii la qasayo oo wixii rabo la sameeynayo ma ogolaanayna ayuu dhahay ciidamada ammaankan wuxuu siiyay digniin uu dhahay waa inaad ka hortagtaa si cad inaad ka hortagtaan waaye una diyaar garowdaan mahdow mucaaradkan hadda ka hor bay banaan bixin aan ognahay xildhibaanada laga dhaawacay oo barqad ku jiro nin ordahaya xiniyaha laga saaray intii station lagu xidho loo talagalay dal xiniyaha laga bixiyay gabadh aad ogeyd oo yareedo dhalinyarana oo ka ogeyd madax laga istaagayay wixii oo dhanba wada dhibaato loo geystay hadiiba dhibaato hadana dadkii kale mudaharada shacabka loo geysanayo mudaharaadkan ma iska daayaan oo la heshiyaan hadii ayba nimanka si kale awood kala oo iskaga ceeliyaan aysan jirin inay la heshiyaan sama wanaagsan
walaa horta ma hado heshiis ninkan Muuse Biixi asi dhankiisa ka socoweysay dhahan heshiiska odayaal ayaan u dirnay odayaashii anaga dhankeena diyaar ka noqotay Muuse Biixi waa loo tagay asagana diyaar waa u dhahay maalintii la banansanaa ee balanta ka baxay marka dhan kale isku rogay marka Muuse Biixi waxa u maleysaa inuu boor isku qaras sameynayo doorashada waqtigeeda inuu ku dhacdan oosan ogoleen hadda dagaalkan dukara qaxta asaga dhaqaaqeeda inuu ka dambeeyo wararka ay sheegayaan marka mar walba diyaar uma hedeen wada hadal anagana waxay dhahan in doorashada waqtigeeda dhaafto diyaar uma nihin marka waa inaan banaanbax sameynaa marka haddii banaanbax ay sameeyaan oo booliiskiina soo kaco xabadii laisku bilaabo culeys ay meesha ka imaan karo wax oo hadda wanaag iyo wax isxaalo laisku sameynayo ma lahan dowladda Somaliland waxay dhahday ilaa waa in laga hortagaa marka meesha cabsiya ka jirto mar walba xabad ayaa bilaaban karto dhibaato fara badan meesha ka dhacdo muddo ka horna waa ognahay dadkii lagu dhibaateeyay iyo dadkii ay sheegeen waa dhibaatada kasoo gaartay xildhibaanada iyo wasiirada kamid ahaayeen dad fara badan lagu xirxiray oo xabsiyada la dhigay waa ognahay wixii meesha ka dhacay Somaliland tiyo kale haday soo noqotana culeys fara badan ay noqon doontaa shacabka Somaliland culeys badan ay dareemi doonaan mahado dadkii la xirxiray ee mucaaradka ahaa maalinta hore mudaharaadku uu dhacay xagee jaan iyo cirib ay dhigeen mala sii daayay mise sidoo ay xirxiran yihiin horta dadkii intooda badan waa la soo daayay oo maalmo dhexdaas waa waanta socota dad fara badan la soo daayay oo agaasimayaal iyo wasiir iyo xildhibaano wax ku jireen marka intooda badan waa la soo daayay banaanka ay joogaan laakiin wixii meeshii ka miis waaye meeshii ka bilaabanaysaa sababtoo mar labaad in isdagaalaan ay weji ka weji iskugu dhacaan ciidamadii iyo dadka shacabka laga yaabaa in askartan wax isxaan ay shacabka u sameynaysa ma leh waa aragtay dadkii dhalinyarada ahayd iyo gabdhihii baarka laga haraatinayay wiilashii dhahay xaniyahayga waa laga saaray oo inta la garaacay oo xaniyaha looga istaagay marka meeshaas dhibaato fara badan ay ka jirto haddee mar kale ay mucaaradka Somaliland ay banaanbax diyaariyaan oo meesha dad lagu dhibaateeyo markan ayaga mas'uuliyadda qaadayo Muuse Biixi meesha ciidamo haysta asagana meesha awood ku haysto wax ka hor iman kara ma lahan tabar uma hayaan marka maalinba banaanbax waxba ma taraayo laakiin Muuse Biixi naftigiisa waxa fiicnaan lahayd inuu xaaladda qaboojiyo mucaaradkuna dhaho doorashada waa idinku laab qaboojina diyaarna waaye hana soo gelina banaanbaxa laakiin asaga dadka lama hadla ay leeyihiin waa nin isla weyn anagana waxa irdoo naga xirtay odayaashii iyo golahii guurtada irdoo ka xirtay marka cabsi fara badan jirto mahdow aad ugu badanna Muuse Biixi ay saarayaan okay nimankan mucaaradka iyo ninkan Muuse Biixi heshiis bay ku heshiin waayeen in doorashada aan wax lagu daro ama xilligii loogu talagashay lagu qabto oo caadi ay u wada hadlaan may ku heshiin waayeen oo taas wada hadalkii way isku fahmi waayeen ba miya maya hadee maxaa leeyahay marka hore odayaasha ayaa dhexaadiyay oo waxay markay dhexaadiyeen weji ka wajina isku warkeenan laba guddi laba dhinac ka socota ayaa timid labada guddi way saaf garteen in la isku yimaado ay ku heshiyeen laakiin maalintii la isku imaan lahay oo waxaan laga wada hadli lahay dhibaatadan la dhameyn lahaa ayaa waxa dowladda Somaliland ay irdaa xiritaan leeyahay odayaasha golaha guurtada oday u hadlay iyo nin wadaad oo maalin dhexdaas hadlay wuxuu dhahay wada hadalka labada dhinac waxa hor istaagay dowladda Somaliland marka cabsi ayaa saas nagu gashay anagana waa iska joogno dhahay marka Muuse Biixi ayaan ogoleen in wada hadal u dhaco teeda kale maamulka odayaashii iyo ogolayaashii guurtada intaba iyo nimankii mucaaradka intaba isku raaceen in Somaliland madaxweynaheeda Muuse Biixi Cabdi ay ka socon weysay in la heshiiyo weji ka weji la isku hor fariisto marka dhibka ugu badan hadda waxa leeyahay Muuse Biixi dhankiisa ayaa ka socdaa waxaan ogaan doonaa wixii ka soo kordho laakiin hadda xaaladdu ma wanaagsano cabsi fara badan ayaa la soo sheegayaa mar dad shacab in lagu dhex dagaalamo xabad lagu dhex ridan wax sheeg wanaag ay keenayso malahan Muuse Biixi waxa fiicnaan lahayd in doorashada oo qabto waqtigeedana ku qabto nimanka mucaaradka ayagana waxa fiicnaan lahayd wado aan banaanbax iyo dhagax tuur aan ahayn in wax ku raadiyaan si nabad ahna ee doorashada ku dhacdo haddii maalmo iyo bilo lagu daraayeen waa in wax laga heshiiyo ay noqotaa laakiin maamulka Muuse Biixi ayaa aad isku adkeenayo wuxuuna rabaa in waqtiga saas lagu gudbiyo muddo 6 bilo iyo sanad iyo ka badan lagu darsado marka taas waa aan ka digaynaa mahado okay kuwaas waxay qodobo wararkeena ugu dambeeyay waxaana inoo faahfaahinaya saaxiibkay Cabdi khayrtawada nagala socotay saas iyo nabadgelyo